munaasabad ballaaran oo xadhiga lagaga jarayay dhismayaal iyo fasallo cusub oo laga hirgeliyay dugsigaas Xaaji Aadan ee magaalada Cerigabo ayaa maanta lagu qabtay barxadda dugsigaasi sare ee Xaaji Aadan ee magaalada Cerigabo. Dhismayaashan oo ka koobnaa 3 fasal oo cusub iyo hoyga nasashada gabdhaha ayaa waxaa maalgeliyay hay'adda USAID oo soo marisay hay'adda samafalka Mercy Crop, waxaana mashruucan oo loogu magac daray Somali Youth Leadership Initiative hirgelintiisa iska lahaa hay'adda Care International. Halka fulinta hawsha mashruucanna ay si fiican ugu farayeereysatay shirkadda dhismaha ee lagu magacaabo Home Star. Munaasabadii xadhiga jaridda dhismayaashan ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag, maayir ku-xigeenka degmada Cerigabo, mas'uuliyiinta hay'adda Care International, maamulka, macallimiinta iyo ardayda dugsiga sare ee Xaaji Aadan, mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada ee heer qaran iyo heer gobol, guddiga waalidiinta ee dugsiga iyo marti sharaf kale. Waxaan ugu horreyn munaasabadaasi ka hadlay Khadra Yuusuf Jaamac oo ku hadlaysay afka hay'adda Care oo ka warantay ujeedada iyo hadafka mashruuca kan loogu talagalay. ujeedka ugu weyn oo laga leeyahayna waxa weeye in kor loo qaado waxbarashada iyo moralka dhalinyarada mashruucan uu targetka u yahay. guud ahaan mashruuca ujeedka laga leeyahay waa inta iskuulkan Xaaji Aadan aan joogno maanta waxaa laga qabtay shaqooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay dhisme 3 kalaas meel gabdhaha girlfriend space oo ah xarun gabdhuhu ay ku xaajooyinkooda ku samaysan karaan iyagoo aan warwar iyo cabsi midna qabin. waxaa kaloo iyaguna munaasabadan ka hadlay mas'uuliyiin tiro badan iyo qaar ka mid ah ardayda dugsiga sare Xaaji Aadan oo dhammaantood bacdeeyay muhiimadda mashruucan uu leeyahay dhinaca waxbarashada, waxayna si isku mid ah mahadnaq iyo bogaadinba ugu soo jeediyeen hay'adda Care International oo ay xuseen in ay hay'adan wax badan ka qabatay oo dhinaca horumarka gobolka Sanaag iyo dhinaca waxbarashadaba. waxaa kaloo isna munaasabadan ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Cerigabo oo tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay yaashan ay hay'adda Care ka hirgelisay dugsiga sare ee Xaaji Aadan ee magaalada Cerigabo, wuxuuna mahad ballaaran soo jeediyay hay'adaha USAID, Mercy Crop iyo Care International. waxaa kaloo isaguna halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Xaaji Aadan Maxamed Jaamac Faarax oo isaguna dhinaciisa ka warbixiyay xaaladda dugsiga sare ee Xaaji Aadan isagoo ku ammaanay hay'adda Care hirgelinta mashruucan. salaanta kadib kulli munaasabad waliba kalbad baa iskaga habboon. kalmadan maanta munaasabadda ku habboon waxa weeye deeqdan iyo waxqabadkan ay noo qabatay hay'adda Care iyo saaxiibadeeda kale hadday tahay Mercy Crop, hadday tahay Save the Children iyo dhammaan shirkadda in waxay yani saaxiibadeeda partnerkeeda kale aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxqabadkan ay noo qabteen. waxaana ugu dambeyntii munaasabadan soo gunaanaday gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan oo mahadnaq weyn u soo jeediyay hay'adda Care International oo iyadu mashruuca kan hirgelisay wax badan ka qabatay deegaanada kala duwan ee gobolka Sanaag. Abdulqaadir Axmed Xasan, telefishinka qaranka Soomaaliland, Cerigabo.